xidhiidhii hore xisbiga mucaaradka ee wadani siyaasi xuseen ismaaciil cilmi oo isagu xilkaasi hore uga holeelay xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay hotel Haldoor ee magaalada Boorama. Jaraa'id oo maanta ku qabtay ayaa waxa ujeedadiisu ahayd hambalyo uu hawada u marinayay madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo wadahadalka uu la galay siyaasi Cali Khaliif Galeyd ayaa waxa uu ku tilmaamay siyaasigu shirkagan jaraa'id wuxuu maanta ku saabsan yahay laba qodob oo kala ah mid aan ku hambalyeynayo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo wadahadalkii uu la furay hogaamiye Cali Khaliif Galeyd midna waa mid ku saabsan isbahaysigii ka baxay xisbiga kulmiye ee uu xirsay hormuudka ka ahaa. haddii aan ku horeeyo wadahadallada uu la furay madaxweyne Axmed Maxamuud Silaayo siyaasi Cali Khaliif Galeyd waan ku hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland hawshaasi waanu ka amaanan yahay sababtoo ah ajandihii ugu horreeyay ee ku qoraa buuggii cagaarnaa ee xisbiga kulmiye ayaa waxa kow ka ahaa in cid kasta oo Somaliland qadiyadeeda ka soo horjeeda aan lagu qaadin dagaal ee lala galo wada hadal tiina ilaa imika waxa lagu soo xareeyay kooxo badan oo Somaliland arrimaha ka soo horjeeday mabda'a Soomaali weyn aaminsanaa laguna qanciyay nabadda iyo horumarka yaalla Somaliland iyo dhulkoogii hooyo. maantana waxaan ku amaanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland wadahadalka uu la furay siyaasi Cali Khaliif Galeyd oo aan hubo inuu yahay siyaasi ka soo jeeda deegaanada Somaliland gaar ahaan gobolada bariga. waxaan leeyahay madaxweyne hawshaasi waa tallaabo hore aad u qaaday waa wax ku faani karo xisbiga kulmiye waa wax ka mid ah waxqabadkii aad u ballan qaaday shacabka reer Somaliland waana kugu hambalyeynayaa madaxweyne arrintaasi hambalyaan ku leeyahay. waxa kale oo Cali Khaliifna leeyahay tallaabadaasi waa chance aad iyo aad kugu bannaan janiskaasi ka faa'iideyso gobolada Somaliland oo dhan oo waxay u dhex taagayaan 27 bisha shirka ka furmi doona Addis Ababa. Cali Khaliif waxaan leeyahay gobolada Somaliland oo dhan way ku soo dhaweynayaan waxa tahay aqoonyahankoogii waxa tahay siyaasiyiintoodii marka aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa. siyaasi xuseen oo hadalkiisa si wata ayaa dhaliilay isla faan badan ku tiriyay waa sida uu hadalka u dhigay siyaasigu master xirsi ayaa waxa uu ku tilmaamay siyaasigu baryahan dambe waxa soo tiriyay faan iyo kotrikuteena uu xirsay meelahan kaga sheekeynayay goobaha bulshada iyo xafladaha soo dhaweynta ee uu kaga qayb galay shirarka. waxa xirsi oo bari waxa jirtay madaxweynaha Central Africa amba Afrikada dhexe madaxweynaheega wuxuu ahaa shakhsi aad wax u qabadka soo wax loo qabta jecel oo bulshadiisu ay aad u jeclaayeen wax badan buu u qabtay bulshada Central Africa ku nool. waxa jiray markaa nin aad u aqli xumaa oo staafkiisa ahaa mar walba madaxweynuhu marka uu meel khudbad ka jeedinayo ayaa wuxuu jeclaa shacabku aad bay ugu farxsanaan jireen madaxweynaha aad bay u qosli jireen. marka waxa maalmaha kamid waxa dhacday wuxuu ninkan mar walba wuxuu safgareysan jiray amba uu aaminsanaa inay dadkani madaxweynaha jeclayna isaga jecel yihiin. maalmaha kamid xirsi waxa dhacday in madaxweynihii jamhuuriyadda Central Africa oo xaflad meel doonay inuu kaga qayb galo inuu ninkii gurigiisa intuu madaxweynuhu ku quflay uu isagu meeshii tagay kadibna wuxuu kala kulmay waxaan wixii uu isagu aaminsanahay wuxuu istaagay halkii uu madaxweynuhu istaagi jiray oo dadka kala hadli jiray balse ma dhicin sidii uu moodayay oo waxa dhacday kadib dadkii wuxuu kala kulmay waxaan wixii aaminsanaa aan ahayn oo ah shacabkii aan fariir iyo yaab ku dhacay madaxweynihii bay sugayeen staafkiisa baa meeshii tagay. kadibna markii arintii ay shacabkii u fiirsadeen waxa dhacay in shacabkii qabteen ninkii staafku ahaa madaxweynaha ay xireen madaxweynihii baa dib loo raadca tagay gurigu ugu soo qufla laga furay waxa la wareystay staafkii waxaan kugu kalifaa la yiri wuxuu yiri ninkii staafkii
sawkii shacabku ay jeclaayeen ee markaan madaxweynaha daba istaago ay aadkay ugu faraxsanaayeen waxaan aaminsanahay buu yiri madaxweynuhu waxaanu qabtayba inayna dadku ku faraxsaneen inay aniga igu faraxsan yihiin oo ay u haystaan dadku waxaan inaan aanu qabtay marka xirso waxaan ku leeyahay waxaad noqotay shakhsigii nooca ahaa shacabku sidoo kale maraan wax ka weydiinay labada garab oo xisbiga u cid oo u kala jabay ka siyaasi ahaan ayaa waxa uu sheegay anu haddaan ka hadlo arrintaasi ama fikirkayga ka dhiibto waxaan leeyahay kolley meesha guddoomiyaa jira oo xisbigu guddoomiyu leeyahay u cid guddoomiyahana anu saa igu maqaalo ah dee jamaal iyo cabdirashiid waqtigii ay heshiiska la galeen waxaan igu maqaalo ahayd inay 20% xisbiga ku lahaayeen 80% uu Faysal lahaa marka waxa anu aan aaminsanahay in ninka 80% lahaa inuu yahay ninka xisbiga ah xisbiga waa guddoomiyaha inuu xaq u leeyahay inuu musharax ka noqdo inuu cid doona keensado inuu isagu xisbigiisa garwadan ka noqdo saasan aaminsanahay marka Faysal baan anu aaminsanahay inuu xisbiga hoggaan u yahay siyaasiga ugu dambeynta shirkiisan jaraa'id ku soo qaatay labadan garab ee xisbiga mucaaradka ee wadan uu kala jabay inuu ka dambeeyo xirsi ayaa waxa uu sheegay inaan in yar halkan kaga ifteemiyo hadalkaygii anuuna dhamaysan in wax qabadkii laga isbaahaysku ay lahayn wadani waan gaarsiinanaa inuu noqday xisbigii wadani inuu noqdo xisbi laba garab u kala fadhiya marka aan waxaan leeyahay wax qabadka xirsi uu ku soo kordhiyay xisbiga wadani waa labada garab ee uu xisbigu kala fadhiisiyay intaasaan hadalkay ku soo gabagabeynaa cabdirasaaq cumar miicad cabdirasaaq qawliyo shabakada caalamiga ee Borama News Borama